qodobka koobaad waxa weeye iskuulkii farsamada gacanta ee gobolka Togdheer iskuulkaas oo dalka dhan ka dhaxeeyay gobolada barina aad u saameyn badan ku lahaa waxa bariyahan baan maqlaynay hantigiisii ama lacagtii Jarmalka ugu deeqay dibluska loogu sameeyay waxa loo wareejinayaa iskuul Hargeysa halkan waxaan baa uga diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madax meel ka soo salaxa ma jirto iskuulka waxaan leenahay halkiisa loo daayay hantigiisana waxa looga qabto reer madaxweyne waxay leeyihiin xamar baan ku xoroona Hargeysana qabsatay taas iyay dhaboobin madaxweyne dawladda Soomaaliya markii ay Soomaaliya ayaan isku jirnay ilaahay naxariistii ka xalif loolan jiray maruu Soomaaliya la hadlayay wuxuu yiri raasiga barbar waa qalbiga reer waqooyiga mar hadaa kismaayo hortaan reerku kala guur waxaan taas uga jeedaa iskuulka farsamada gacanta ee gobolka Togdheer waa qalbiga gobolka Togdheer hadaa u rartaan Hargeysa reerku kala guur baan u leenahay halka qodobka intaasan madaxweynaha Fariin u diraya bariyahan ba waxa leeyahay shir baa burcal ugu qabanaya laba beelood baa shiraya beeluna shiraan waa soo dhaweynayna inta waxaan la sameeyana waa soo dhaweynayna in gacmaha la qabsano waa soo dhaweynayna horumar haduu leeyahay oo wax wada qabsi iyo horumarka iyo dhiska burco laga wada shaqeynayo waan taageerayna waxba ma taageerayno waxaan taa raacinayaa magaalada burco horumarkeedu si xawliye buu socdaa ganacsiga si xawliye u socdaa meelaha qaar laakiin caqabad baa ka taagan tusaale haddaan u soo qaato laba shirkadooda waxa warbaahin baa ka eeneen isgaarsiin baa ka jira magaalada Telesom iyo Samtel baa ka jira magaalada burco ganacsigu furfurnaado saddex galaad bay u wacan tahay waxyaabaha aan jecelayn laga shiro koow bay ka tahay suuqa galbeedka ama galbeedka burco iyo ood weyne iyo tuulooyinkiisa iyo dahabku kama shaqeeyo Samtel kama shaqeyso sida bariga gobol bay u taagan tahay Telesom ay taakada isu jirtay talaabada taana waxaan oran lahaa shirka waxyaabaha hadii laga wada hadlayo oo ganacsiga free laga dhigo la isu furayo waan soo dhaweynaynaa aad baan u soo dhaweynaynaa qabadkeedu markaan ka soo qaadno iskuulkaas oo kale burco markaan ka soo qaadno airportkii oo kale meelaha halbowlayaasha burco de waxa weeye way aad iyo aad bay fadhiid uga tahay oo aan waxa weeye aan wax qabadkeedu ka muuqan airportkii waa xidhan yahay iskuulkiina waa taa la isku haysto de markaa waxa weeye taa waxaan u arkaynaa caqabad dul saaran burco waa arkayseeno dad badan baa ka qaylinayay